بابا أنتوا عنو عين تابان مقري شري عقلك إلى هنا تدخل كل اللي نرجع أو بقولها أظن نرجع أو هرت بقولها أين بحكي شيكته وحبأ أذكر شيك غير كيس كورة هرت وأخلاقهم kulan wacan oo wanaagsan dhamaan ba saxaabta hawada naga daawanaysa halkan waa channelka Filciliya official channel kuna soo dhawaada saaxiibayaal barnaamijkii maxaa soo kordhay maanta waxaan idinku hayaa fanaanada caanka ah ee Deeq Afro oo afka furtay markii ugu horeysay iyadoona weerar culus ku qaaday fanaanada caanka ah Hodan Abdirahmaan iyo saygeeda Alfanaan Mursal Muuse Cumar iyo waliba iyadoona ka hadashay guurka ay dhawaan isguursadeen fanaanada caanka ah ee Kin Jaamac iyo saygeeda Taraagla ah ee Alfanaan Maxamed Alta fadlan daawad intaan muuqaalkeena guda galin waxaan naga xasuusinaa haddii ay tahay kugu horeysay aad aragto channelka Filciliya official channel ha ka ilaabina subscribe ta saarato gambaleelka u furato haddii ay macquul tahayna like iyo share iyo commentiga israaso oo like tuna waa muhiim oo waxay muujinaysaa inaad muuqaalkeena ka heshay mahadsanida fanaanada caanka ah ee Deeq Afro ayaa baalasha ka riftay fanaanada Hodan Abdirahmaan iyadoo ka hadashay muuqaalada isxigxiga ay Hodan Abdirahmaan ay ugu hanjabayso fanaanada Kin Jaamac iyo saygeeda Maxamed Alta taas oo ay ku sababaysay fanaanada Deeq Afro in ay kaba hinaastay meherka iyo arooska Maxamed Alta iyo Kin Jaamac waxayna Deeq Afro Hodan Abdirahmaan ugu hanjabtay haddii ay joojin weyso dhaga hadalka iyo hanjabaadyada ay mar waliba ay soo dhigayso barteeda Snapchat-ka in mursalkan ay ku waalatay Hodan Abdirahmaan laga dulqaadi doono ayay tiri Deeq Afro fanaanada Deeq Afro ayaa barteeda Facebook-ga waxa ay ku soo qortay qoraal kooban oo hanjabaad ah iyadoona ugu hanjabaysa fanaanada Hodan Abdirahmaan iyadoona ka hadlaysa waliba Deeq Afro hanjabaadahan ay Hodan Abdirahmaan u soo jeedinayso Kin Jaamac waxaanu ku bilaabmay qoraalka sida tan waxaan aad ula yaabanahay naagtan Hodan Abdirahmaan maxay la hinaasaysaa oo ay muuqaalada aflagaadada ahi u soo duubaysaa Hodan waxaan ku oranayaa huuno nin baa ku qabay magaalada ka seexo haddii Maxamed Alto rajo ay ka qabatay naag sharaf leh buu hantiyay ee dadka buuqa ka dhac maalmahan dambe waad ka soo daraysaa wax runta ku sheega ayaad weyday ee naagtii labada nin qabay miyaad riwaayad ka daawatay xisho Hodan Abdirahmaan Snapchat-ka stress kala soo gashid naga kala yaray fadlan intaas ayuu ku soo koobtay qoraalkeeda dhanka kale fanaanka caanka ah Mursal Muuse Cumar oo ah sayga fanaanada Hodan Abdirahmaan ayaa isagoo aad uga careysan hadalhaynta la hadalhayo guurka fanaanada Kin Jaamac iyo fanaanka Taraagla ah ee Maxamed Alta isagoo careysan ayuu video iska soo duubay waxaanu yiri وكلر نوع حصله هاي عصب احنا نجي جاهور احنا ويليه بقرده هل ونكم حوالو waxaan Facebook ugu soo qoray ninkoofi halka waxa ku soo qoray aflagaadu ku soo qoray dad caay adayga toosibay ka tabar alayaal ma wanaagsan tii Snapchat stay tuned maanta warban soo wada weyn markaan gurigeyga tago in caafimaad tago insha Allah in wifi-gi waxdan aan helo no balana ya akhbaarka ay gala socda ka hargeyso ugu jecelahay wad kari jaahur يا حاج يس walaalkay weeyaan kaasina walaalkay walaashay Hodan Abdirahmaan iyo walaalkay Mursal shidan horaan u dhigay walidin sheegay in soo galayo laakiin bisigan iska dhuqday marka walaal ilmo iyo reeriye elinaysa easy maaha taa markaan ka gudbo muhiimadan soo galay waxa weeyaan Soomaalisna waan arkayo mad walaaltay ka jawaabaysay hortaana aqoon babada aqoonsaas baaban isu lahaynba midda kale waxay Soomaali ku mahmada sixir ka daran yahay adoon tuducda iyo sheekadu meesha ka socotaan weydin horta inaad soo dhex gashaa ama aad ka jawaabto ama dee aan hawlan adigu lahayn aad soo gashaan horta aad loo beer wanaagsan hubsiima halba la siistay Soomaali tartan hubsata wax walba ka horeeya Soomaaliland inaan malaag iska wada dhigin walba qofku yahay iyo meesha ka soo jeediyo si fiican bayna soo wada naqaanaa ma garateen taan ka soo gudborto qofkaas sheekooyinkan aad ugu fogaado marka talabaad okay warkaan ka soo gudbo Soomaali waxay tiri nin durbaanta fiilaaq dalbi ma garateen horta Soomaali qofkii magac u leh ya horta ay aflagaado iyo deesaasa la yiri horta inta horta hadal ba kama bajiraba maalin iyo habeen iyo dharaar iyo leelba lagu soo qaadaya haddana Soomaali baynu u siinahay daliishii iyo ayadaba taan ka soo gudubno laakiin qofka marka si shakhsiyan isku taqaanaan hebel iyo heblaaya soo garanaysaan magaalada degantihiin
aad istoleysataan ee qofku inaad ku yiraahdo inaad tiraahdo ya oo sidii dad family aad inaad ixtiraamto madaxaaga hoos ka geysid oo aad walaal isla tahay leedihiin qofkaas hadduu kugu khaldamo oo intuu snap ku furto snap inta la furto snapkaana aan qof kale laga caynay dadka aad sida aqoonta saxda ah u leedahay cayda ka waran anigu Soomaali snap day awal kor wali soo tagaray jira waxaasay ka hadleeno kurba bay iguma hayn jirinba wallahi laakiin qof okay wixii day aad adigu qofka bini aadanka hortaad ku oranayso waxa sharaf iyo cunsu ku jirta marka qofka aqoon dheeraad aad isku leedihiin ya horta inaad day aad ka soo meeraysato waxa kale rabaa inaad taabto waxa la yiri qofka bini aadan horta nin walbaaba intuu cunuucayn taaban maqli jiray aqliga ilaahayna dadku kala dhaliya nin raga oo boqolaa adoon nin raga oo horta boqolaa inaad wax ka sheegto waxba aad ka sheegtay reerkiisa ka warata horta waa akhlaaq xumo ma garatay oo dad aan eed iyo dhaliil toona lahayn in horta dhaliil loo yeeshaa nin ragod cunto la cunayso horta aad ku hortaagan waxaad oran weyday inaad isnaab magac kale aad u samaysato ya wad wax ka sheegtaana waa nasiib darorta dhankeeda taalan leh inamada Soomaali isnaab iskala labada nin ee aniga horta si khaas ah la igu sheegay labaduba personal ninkii u yaqaaneen ash la cunayeen bay marka si dhaqan wax ka sheegeen ay raganimo iyagoo hortaagan wax ka koodhan waayay calee waxa kale igu qasliya horta marka ilaahay boqol ka dhigay uu ku karaameeyay ya nin rago boqol horta isku soo noqoto isku soo meeraysata iyo gabadh dumar ah wada qoon u leedahay ya oo qoys iyo reer leh saaxiib oo 60kii tashatay 60kii ya inaad markii lagu weydiiyo xataa lagu su'aalana waxyaabaha qaar cimriga kuma yaro wallahi shoode mana rabo inaan magacaaga ka sheego darto ku tacabka ku khasaaraya adiyaan wayna soo dadkii lahaa Soomaali qabiil male Soomaali snabs qabiil male walaal waa hagaag saaxiibayaal intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeeni maxaa soo kordhay oo aan maanta kaga hadlaynay fanaanada caanka ah ee Deeqa Afro oo afka furtay iyadoo weerar culus ku qaaday fanaanada caanka ah Hodan Cabdiraxmaan iyo saygeeda alfanaan Mursal Muuse Cumar iyo waliba iyadoo ka hadashay guurka ay dhawaan iskuursadeen fanaanka taraaglaha ah ee Maxamed Alta fanaanada King Chama intaan muuqaalka xigaan dib hawada u kulmi doona saaxiibayaal waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo